شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي المقال كان مانتوا الصبر أما الصمرك. صمركو عربي هو الصبر، إنجليزي هو patience. قاموسيد عربت waxa ay dhigayaan in ay الصبر la macno tahay alxabsu oo macnahaana Soomaali ku noqonaysa xiritaan. istilaax ahaan kelmadda الصبر waa thabaatu nafsi can ilhuda wa xabsuhaa can ilhawa, nafta oo lagu sugo hanuunka loona diida xumaanta iyo wax kasta oo ay jecesho xun. guud ahaan samirku waxa uu kala baxaa samir dhammaystiran iyo samir kala dhantaalan. samirka dhammaystiran waa ka Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah uu yidhaa الصبر الجميل والذي لا شكوى فيه ولا معه. macnahaana ku noqonaysa waa samirka aan cabashada wadan, samirka aan la mahadin ama aan quruxda badnaynin waa kaalidigiis. haddaba daawada haddii aynu soo koobno ahmiyadaha samirka ugu waaweyn waxaa ka mid ah: kow, ilaahay waxa uu ku sheegay qur-aankiisa kariimka in ka badan 70 meelood. laba, ilaahay waxa uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala salaada, waxaanu yidhi istaciinuu bisabri wasalaa. saddex, diinteena islaamka haddii guud ahaan la eego waxay ku dhisan tahay samir, sababtoo ah waxa ugu weyn ee layna faray waa samaynta daacaadka, waxa ugu weyn ee laynoo diidinay waa ka tegidda macsiyada. labadubana waxay ku dhisan yihiin samir. qof samra ayuunbaa kana tegi kara xumaan, samayna kara wanaag. tusaale ahaan dhowrsoonaantu waa inaad ka tagto wax kasta oo xun, muuqda ama qarsoon, qadhaadh ama macaan. sidaas darteed waxa ay ku xidhan tahay samir. tusaale labaad, qanaacadu waa in lagu samro oo lagu raali noqdo qaybinta ilaahay. qof samro ayuunbaana helaya. ahmiyadda afraad ee samirka, ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu ku dhaartay casarka qirayna in dadka oo dhan wada khasaareen, waxa uu ka soo reebay ila aladiina aamanuu wa camiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. qodobka u dambeeya maanta aynu ku soo koobanaa waa amarada samirka. ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa waxa uu amray samirka, isagoo ku amray qur-aankiisa kariimkana waxa uu leeyahay fasbir ina wacda allaahi xaq fasbir calaa maa yaquuluun. luqmaan ibn xakiim oo inankiisa waaninayana waxa uu qur-aankiisa kariimka ilaahay ku dhex sheegayaa yaa baniya aqimi الصalaata wa'mur bilmacruuf wanha can ilmunkar wasbir calaa maa asaabak ina dalika min casmi alumuur. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo addoomihiisa amrayana waxa uu leeyahay wastaciinuu bisabri wasalaa wa inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca alsaabiriin. yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun. daawadayaal, muuqaalkeennan maanta intaas ayaynu ku soo koobaynaa. insha allah muuqaalkeennan ku xiga ayaa waxaynu kaga warrami doonaa midhaha samirka iyo sideed u noqon kartaa qof samir badan, iyadoon insha allah isku raacin doonno talooyin guud oo aan samirka ka qaadan doonno.